dalalka adduunka iyo dadyowga ku nooli uma kala taajirsanaa sida dhulkoodu u kala khayraad badan yahay. halkani waa Venezuela, dhulka ay ku kulmaan khayraadka shidaal ee adduunka ugu weyn iyo gaajada ka dhalatay isla shidaalkaasi. marka aad ka soo degto garoonka diyaaradaha ee Caracas si aad u gaadho goobta ay masiibadu ka jirto kuna aasan tahay rajada dadka reer Venezuela, waa inaad qaadato safar diyaaradeed oo gaadhaya 500 oo kiiloomitir, kaasi oo aad u kacayso dhanka waqooyi galbeed meel u dhow xadka Colombia. halkani waxaa ku taalla mid ka mid ah harooyinka biyaha dhanaan ee ugu waaweyn Latin America, waana Maracaibo. dhererkeedu waxa uu gaadhayaa 160 kiiloomitir, halka ballaceedu gaadhayo 110 kiiloomitir, waxaanay ka weyn tahay dalal ay ka mid tahay Qatar. dadka deegaanku wixii ka horreeyay 1914 waxay si weyn ugu tiirsanaayeen kalluumaysiga harada oo leh biyo milixdu ku yar tahay. dadka halkan deganna waxay u badnaayeen xoolo dhaqato beeraley. astaamaha shidaalku ma ay ahayn qaar ku cusub halkan. ilaa qarniyo hore dadka halkan degan waxay arki jireen dhoobo madow oo dhulka ka soo baxaysa, taasi oo ay dadka deegaanku ugu yeedhi jireen mane. waxaanay u isticmaali jireen ujeedooyin kala duwan, sida inay mariyaan doomaha looxa ka samaysan oo ay kaga ilaalin jireen inay biyaha dhanaan waxyeeleeyaan. sidoo kale waxa ay marin jireen dhaawacyada iyagoo aaminsanaa inay dawo tahay. balse xilligaasi cidina ma qiyaasayn in dhoobadani ay tahay dahabka madow ee qarniga iyo bilowga qaninimada Maracaibo. sanadkii 1914 waxa uu Maracaibo iyo Venezuela u ahaa mid taariikhda ugu xusan oo mudnaan gaar ah leh. waxaana isbedelay sanadkaasi wejiga dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda ee dalka. ka hor sanadkaasi, Venezuela waxay ahayd dal sabool ah oo ku tiirsan wax soo saarka beeraha. laakiin bishii Abriil ee isla sanadkaasi waxaa si rasmi ah shaqada u bilaabay ceelkii shidaal ee ugu horreeyay, kaasi oo ku yaalay hareerta bari ee harada Maracaibo. ceelkanina waxa uu maalintii soo saari jiray 264 foosto oo shidaal ah. inkastoo ay maanta u muuqato tiradaasi mid aad u yar, haddana xilligaasi waxay ahayd ribix weyn oo ganacsi. mucjisada qaninimada Venezuela waxay dhacday 1922 kadib markii shirkaddii Venezuela Oil Concession oo ay lahayd shirkadda Shell ay muddo dhowr sano qalabka shidaalka lagu qodo ku rakibaysay xilliga bari ee gacanka Maracaibo, halkaasi oo ay ka qodayeen dhowr ceel oo shidaal ah. subax ka mid ah maalmaha, mid ka mid ah ceelashii ayaa sameeyay qarax weyn oo lala argagaxay, kaasi oo uu sababay cadaadis ka yimid shidaalkii malaayiinka sano aasnaa, kaasi oo hawada u tuuray qalabkii dusha sare saarnaa ee ceelka lagu qodayay. waxaana kor u baxday mawjad madow oo ah shidaal saafi ah, taasi oo gaadhay 40 mitir. xilligaasina waxaa luntay awoodda lagu xakamayn karo shidaalka kumanaanka foosto ka kooban ee qubanaya. xakamayn la'aan darteedna shidaalku waxa uu qubanayay muddo 9 maalmood oo xidhiidh ah. maalin kastana waxaa daadanayay 100,000 oo foosto oo shidaal ah. marka laga yimaado cadaadiska faraha badan ee sababay shidaalku inuu qubto, sababta kale ee ugu weyn waxay ahayd tiknoolajiyadda xilligaasi oo bilow ahayd.
shidaalkii qubanayay maalmaha badani waxa uu dhaliyay masiibo weyn, waxaana uu baabi'iyey guryihii, beerihii iyo dhirtii deegaanka. ka hor inta aan la xakamaynin 9 maalmood kadib, waxaana qaxooti noqday dadkii deegaanka ee ka agdhowaa harada. inkastoo ay masiibo ku wahayd dadka deegaanka, haddana waxay si toos ah u tustay dunida sirta ku aasan Venezuela iyo qaninimada Maracaibo. maalintaasi wixii ka dambeeyayna waxa Maracaibo u soo guuray shirkadihii shidaalka ee dunida sida Standard Oil, ExxonMobil, Gulf Oil iyo Shell oo hore u sii deganayd. waxaana shirkadahani bilaabeen inay ku iibsadaan ama ku kireystaan malaayiin dollar dhulka ku hareeraysan gacankan. magaalada Maracaibo oo u dhoweyd gacankuna waxa ay maalmo gudaheed ku noqotay xarun caalami ah oo ay ka buuxaan injineero, khubaro iyo ganacsato reer galbeed ah. waxaa la dhisay xaafado cusub oo ay degan yihiin dadka ajnabiga ahi. dadkii magaaladan deganaana waxay heleen shaqooyin lagu qaato mushahar heer sare ah. haradii ama gacankii ay mari jireen doomaha looxaanta ka samaysan ee kalluumaysiguna waxaa xidhay oo jaam ka dhigay maraakiibta waaweyn ee shidaalka. sanado gudahood waxaa harada korkeeda laga qoday 10,000 ilaa 15,000 oo ceel, waana meeshii ugu horreysay ee laga qodo ceel shidaal oo biyaha korkooda laga soo saaro. biyaha hoostoodana waxaa la mariyey kumanaan shabakado tuumbooyina, kuwaasi oo shidaalka geeya maraakiibta, haamaha shidaalka iyo dekedaha looga dhoofiyo dunida kale. wixii ka horreeyay sanadkii 1922, Venezuela waxay dibadda u dhoofin jirtay shidaal gaadhaya 2.2 milyan oo foosto sanadkii, balse 6 sannadood gudahood Venezuela waxay noqotay dalka ugu badan ee adduunka u dhoofiya shidaalka, waxaana uu gaadhay xaddiga shidaalka ee ay dhoofisay 106 milyan oo foosto. dhanka dhaqaalaha Venezuela waxay gaadhay maalin ku taajir aan caadi ahayn. dakhliga guud ee dalka ayaa kordhay 300%, halka dakhliga soo gala qofka muwaadinka uu kordhay 500%. sanadkii 1950kiina dalka Venezuela waxa uu noqday dalka afraad ee ugu dakhliga sarreeya caalamka, isagoo ka sare maray dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Canada. sidoo kale waxa uu noqday dalka ugu taajirsan Latin America. lacagta tooska ah ee soo gasha khasnada dawladuna waxay sanad kasta kordhaysay 14% ilaa 20% sanad kasta, taasi oo dawladda u suura gelisay inay bixiso dhammaan deymihii lagu lahaa. 1920kii 90% waxay Venezuela dibadda u dhoofiso waxa uu ahaa bunka iyo kookaha, halka 10 sano kadib 1930kii 90% waxay dibadda u dhoofisaa uu isku bedelay shidaalka. muwaadinka dalkani waxa uu si fudud xilligaasi u iibsan karayay waxyaabaha ayna xataa ku riyoon karin dadka reer Latin America iyo dalalka Yurub qaarkood. waxay ahaayeen muwaadiniinta ugu dalxiiska badan qaaradda. waxa ay dabaqada dhexe ee dalkani ku lahayd guryo dalxiis dalalka Mareykanka, Canada iyo Ingiriiska. nooca baabuurta wadooyinka Caracas iyo magaalooyinka kale Venezuela jaamka geliya dalalka kale adduunka waxa ay ku ahaayeen naadir. dhanka caasimadda Caracas intii u dhaxaysay 1930kii ilaa 1920kii waxa loogu yeeri jiray The City of Tomorrow ama magaalada mustaqbalka. lacagtii shidaalka ee xaddiga ka baxsanayd waxaa si toos ah loo geliyay dhismaha magaaladan, waxaana la keenay injineeradii ugu aqoonta badnaa xilligaasi, waxaana laga dhisay dhismayaal dhaadheer, jaamacado waaweyn iyo kaabayaasha dhaqaalaha. waxaana Venezuela xilligaasi caan ku ahayd dhismayaasha sida farshaxanka iyo hibadu ku dheehan tahay loo dhiso. waxaana ka mid ahaa dhismayaashaasi Hotelka Humboldt, kaasi oo ahaa dhismo wareegsan oo laga dhisay dusha sare ee buurta
El Avila, kaasi oo ay dadku ku tegi jireen baabuurta xadhkaha raacda ee loo yaqaano cable cars. caasimadani waxay xilligaasi lahayd khadka tareen ee dhulka hoostiisa mara, kaasi oo ahaa kan ugu casrisan qaaradda Ameerika oo dhan. xataa waxa ay ka horumarsanayd Maraykanka marka loo eego qaabka loo dhisay khadka tareen ee Caracas. waxay sidoo kale xilligaasi Venezuela ahayd masrax iyo meel ay ku riyoodaan muhaajiriinta iyo dadka qaxootiga ah ee Latin America, waxaana dalka ku soo qulqulayay malaayiin qof oo qaxootiya, kuwaasi oo ka yimid Colombia iyo dalalka kale ee la jaarka ah. Colombia oo keliyana waxa uu qaxootigeedu gaadhayay 2 milyan oo qof, waxaanay degeen badankoodu dusha sare ee buuraha Caracas. sanado badan oo barwaaqo ah oo ay Venezuela soo qaadatay 1983 waxaa bilaabmay xilligii burburka, waxaana soo gabagaboobay sannadihii barwaaqada. bilowga masiibaduna waxay ahayd farxad weyn oo dhacday sannadihii 1973. farxaddii masiibada ahayd ee halka habeen dhacday isla markaana galaafatay Venezuela.